gudoomiye maxamuud maxamed sanay waraadka aad ayuu macluum tahay sanad dugsiyeedkan degmada balcad waxay noqotay degmada ugu saameynta badan ee imtixaanaadkeeda aad looga hadlo bal imtixaanka sanadkan sidee ardaydu u galeen marka hore noogu bilaab bismillah marka ugu horeysa horta radio dalsan aad ayaan ugu mahadcelinaynaa juhdiga ay ku sameeyeen in ay nagu soo booqdaan degmada balcad imtixaanka sanad dugsiyeedka ay qaadayso wasaaradda tacliinta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa in ay noqotay meesha ugu saameynta badan iyo hadalhaynta badan degmada balcad inay noqoto waa ku faraxsanahay waxaana sababay dadkeeda in ay noqoto meesha ugu saameynta badan dhinaca hadday noqoto dhinaca nabadgelyada hadday noqoto dhinaca asluubta iyo soo dhaweynta muxuu ahaye dadka ka shaqeynayo imtixaanad ka shaqeynayo waxaa kaloo aad iyo aad nasiib wanaag maanta sanad dugsiyeedkan ay noqotay ninka aan qiyaasay in uu da-weyn yahay cidda fadhiisatay imtixaanaadka sanadkan in uu degmada balcad ay noqday waana arrin recording ah oo aan ku ammaananahay haddaan nahay degmada balcad waxayna ka turjumaysaa sida damiirkayna uu nool yahay oo aan muxuu ahay dadkayna ay niyaddooda ay nadiif ugu tahay markii nin 70 jir oo wax noo baranayo waxaan u malaynaa 15 jir inuuna aan naga dariiqada naga fadhiisanin oo kasii himi badan yahay kasii hami badan insha Allah Ahmed wuxuu ku dhiiraday in isagoo da'dan jira uu iskuul fariisto oo uu wax barto bal maamul ahaan maxaad u qabanaysaan hadda maxaa la garab taagan horta marka ugu horeyso wuxuu noo soo jiiday ayaa wax walba aan u malaynaa abaalkiisa ma gudi karnaa inta uu asaga ku dhiiraday in uu muxuu ahay isagoo da'daas ah in uu wax barto waxaan maamulka haddaan nahay degmada balcad aan ku support garaynana ku taageerina in uu sii wato waxbarashadiisa oo aan dugsiga sare oo ugu harin oo aan aragno sugo 8 jir baad qaadanay in aragno rajina dilayga waaya ugu dambeyntii dadka kale ee la mid Ahmed ee loodkiisa ah ee aan fursad waxbarasho helin lagana yaabo in iminka fursado badan haystaan maxaad ugu baaqay waxaan ugu baaqayaa odayaasha iyo islaamaha korsaday ilmaha in ay hadda wax bartaan faa'iidina u tahay ummadda muxuu ahay qoyskay u tahay faa'iido waxay u tahay muxuu ahay deegaankii ay faa'iido u tahay gobolkii faa'iido u tahay waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay ku dayasho fiican u noqoto sida uu uga gun gaaray oo uga miro dhaliyay maaha muxuu ahay dugsi dhexe maaha mid hoose wuxuu joogaa dugsi sare inuu maanta ka qalin jabsho marka waxaa dareemaysaa juhdiga uu soo sameeyey waa juhdi aad u sabab badan asagoo intii imkaaniyaada iyo wax qoyska looga rabo haddana uu fursadiisa siiyey in uu asaga isdhiso oo ilmihiisana waxaa dareemaynaa marka ninka asagoo da'daas isdhisay inuu ilmihiisana uuna ka seexanayn inuu ilmihiisa dhisay marka odayaasha iyo islaamaha mar waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay tusaale fiican u noqoto muxuu ahay sida uu ku dhaaqay Axmed mudana waa ku mahadsantahay inaad nala hadasho waxaan rabaa marka in aan hadiyad yar ku gudbiyo muxuu ahay maadaama uu mudeestay بس يبقى الحشيش اسكت كما قلت لله وانا بودي هيك بيننا جامعة لما بلغ هذه ان شاء الله ذات فرصتك سيولي كرتو انا راح اقول لك المدوق عبسان ان شاء الله